kulanti wacan wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka ee channelkeena qodobada maanta aan kuga helan waxa ka mid noqon doona miyuu Cali Yara Cali ku biiray tiimka Damo Jadiid UPD wala hadal ayaa la sheegaya oo si qarsoodi ah ugu socda filla Soomaaliya Cali Yara Cali waa daawad doontaan maxay ka dhigan tahay in dhabarjuun uu ku sameeyo Cali Yara Cali nidaamkiisii hore nabad iyo nolol tiimkii farmaajo Faadiyaasiin xog iyo macluumaad dheeraad ah arintaas ku saabsan ayaa in soo gudbin doona waxa kale oo daawad doontaan ciidamada dawladda federaalka ayaa fashilay qorshe al-shabaab ay ka dabacsanayeen gobolka Hiiraan waa daawad doontaan Mareykanka wuxuu si toos ah u taageeray hadalkii ka soo baxay ururada warbaahinta ahaa inaan la caburin saxaafadda siman loo wada baahiyo wararka al-shabaab iyo kan dawladaba waan idin soo gudbin doonaa haweeney markaasi muddo dheer xabsi lagu xukumay dalka Kuwait waxa laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Caadi Muqdisho وبس أكون فاين دونا وركنا معالم كدبنا سيدا فلان قاعد نقول سبسكرايب ونوصل قبل كنا فرو ونسي شركات سحبي مركز الجوجان يدكوا كم تيجي لايكنا إنه الريبة أتبدو ما سنتين عن كل باللونه على عبد الوردير على يري قدام كحيين كي لانك أمريكي ستة مامك قبل كبنات أيا حقوق دير هذا لقيه لي كل مكان دوان ومركز لي جدنا يوقع كتسن مدحدا دم جديدة علي يرى على الآن وتاجر مدحوني هراء ذلك مها عبد الله فرماجو أي عشان برود كدي بحتاج كيف فرماجو ولسه هي حلكة حل لفري إن حتى تضبعدو اسم كده بيدون فرماجو ورا شجرنا كانوا ورا أن هلا أي شيء إن علي يرى يحمنا آد ويقولوا مدحون حسن محمود أيوة هذا له معلومة سعودة كلهين مقدسه إذا أنا حدي وهذا الله أساسه حرمان لفلي إن علي يرى على القصة بيروك واحدة وكان كذلك هيساع warku wuxuu intaas ku diray in wadahadalkaas ay hogaanka u hayaan siyaasiyiinta beesha habar gidire ee xasan maxamuud aad kugu dhow iyo xubno kale oo xafiiska wasaaraha ka tirsanaa xogo lagu kalsoo yahay ayaa sheegay in Cali Yara Cali uu aqbalay soo jeedin ka timid filla Soomaaliya isla markaana uu ka tirsanay eedeymaha iyo xaddaafka ah iyo markaas mucaaradnimada madaxda dawladda federaalka taas u bedelkeeda loo balan qaaday in lagu abaalgudi doono wax u qalma xilka uu hadda ka tiidegayo xilka uu hadda baneynayo xogta ayaa intaas ku diraysan Cali Yara Cali oo booska gobolka Banaadir uu qaybsi ahaan horay ugu fadhiyay laga wareejin doono isla markaana jaga kale oo markaas ku qanacsan yahay loo balan qaaday waloo aan wali la aqoon waxa ay tahay xubno uu ka mid yahay mahasalaad gudoomiyaha gobolka Banaadir ee wasaare Xamse Cabdi Barre wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi Abshir Buqaari wasiir dowladda madaxtooyada iyo xubno kale ayaa si weyn ugu shaqeeyay wax ka bedelka mowqifka Cali Yara qoraal uu shalay bartiisa Facebook soo dhigay ayuu si weyn ammaan ula dulacay madaxda hogaanka dalka haysa xilligan kuwaas oo ku tilmaamay qorax joog isla jaan qaadi kara oo is-aaminaadooda ay aad u sareyso wuxuu si gaar ah u xusay madaxweynaha oo ku tilmaamay inuu yahay oday Soomaaliyeed oo si gaar ah abaal ugu hayo iyo agaasimaha Nisamaha Salaad oo uu tilmaamay inuu saameyn ballaaran leeyahay xildhibaanada uu ku matalo Cali Yara Cali ayaa soo kale u mahadceliyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Madaale oo uu sheegay inuu kalsooni gaar ah markaas uu tusaya arintan ayaa hadaba waxa la sheegay inay tahay mid dabarjab weyn ku ah maadaama Cali Yara Cali uu ka mid ahaa nidaamkii hore ee farmaajo si weyn u ololaya taageeramada markii loo eegana waa dadka sida weyn markaas mayalka adag ee nidaamkii hore ka haraya dhinaca kalena ciidamada xoogga dalka iyo markaas dadka deegaanka macusleyda ayaa fashilay isku day ee al-shabaab ay ku doonayeen inay ku gooyaan wadada xiriirsa degmooyinka beledweyne iyo buurburta gobolka Hiiraan oo markaas dhawaan la furaya maleeshiyaadka al-shabaab ayaa axadii warar uu muuqday mid si weyn loo soo qorsheeyay ku ekeeyay fariisimihii ciidamada ku lahaayeen deegaanka Jicbo oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Buulaburta halkaas oo ku dhaxmaray dagaal socday muddo badan oo ugu dambeyntii lagu fashilay duulaankoodii wasiirka amniga Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyrle ayaa sheegay in qorshaha shabaabku ahaa inay cagta mariyaan ciidamadii halkaas ku sugnaa kadibna ay gooyaan wadada Beledweyne iyo Buulaburta xiriirsa waxaa inta badan ka socda gobolka Hiiraan deegaanka ka tirsan dagaaladii ugu qaraaray ee u dhaxeeya dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidamada dawladda federaalka oo kaashanaya dadka deegaanka ayadoo dagaaladaasi ay al-shabaab kala kulmeen jab aad u xoogan qasaarihii ugu badnaana ayaa lagu gaarsiiyay oo dhawaan la soo bandhigay wax ka badan 200 oo markaas dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab halkaas lagu dilay qabiy hore ayaa daawanaysa dhinaca kale dawladda ayaa shaacisay inay guuleysay inay dalka dib ugu soo celiso Faadumo Cabdullaahi Samatar oo 15 sano jir xabsi ay ku xukuntay dawladda dalkaasi Kuwait Faadumo oo sanadkii 2017 ee dawladda Kuwait ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah ayaa laga soo jeediyay xalay garoonka Caadi Muqdisho waxaa loo gudbiyay xarunta CID Muqdisho 10 Oktoobar waa xalay
waxaa kaloo ka diyaaradaha aadan cadde xafiiska xirlaalinta guud ee qaranka lagu wareejiyay Faadimo Cabdullaahi oo ku xirnay dalka Kuwait laga soo bilaabo July 28 July 2010 Faatimo waxaa lagu helay eedamo ay ku eedeeyeen dacwo oogista dalka Kuwait waxaana lagu xukumay 15 sano oo xarigaas ugu dambeyntii amiirka dalka Kuwait ka cafiyay kala bar ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay ama lagu baahiyay warbaahinta dawladda warkaan laguma xusin dambiga ay gashay gabadhan ee sababtay in lagu xukumo 15 sano waxaan hadda loo gudbiyay xarunta CID-da si halkaasi baaritaano iyo markaasi xabsigeeda inta ka dhinaa ay ka qaadato dadaal dheer iyo markaasi xiriirka xafiiska xirlaaliyaha qaranka iyo eedaha kale ee dawladda ay ka sameeyay arrintaas ayaa suuro gashay in Faadimo markaas dalka dib loogu soo celiyo ugu dambeyntii lagu baahiyay qoraalka xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka ayaa ballan qaaday in dadaalkaas uu isugu geyn doono sidii dhammaan dalka dib loogu soo celin lahaa muwaadiniinta ku xiran dhaafaha caalamka sidoo kalena la xusay inay jiraan dadaallo markaasi ku aadan arrintaas oo wadahadallo markaas ay socdaan sidii dalka dib loogu soo celin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee wadamada dibadda markaas ku xiran dhinaca kale Mareykanka wuxuu uu si weyn u taageeray ururada warbaahinta madaxa banaan ay ka qabteen shirka jaraa'id wasiirkii warfaafinta ee ku xigeenka cadaalad oo ku sheegay in aan la baahin karin wararka al-shabaab dowladda Mareykanka ayaa qoraal soo saartay waxa ay fariin ugu diraysaa dowladda Soomaaliya iyo warbaahinta Soomaaliyeed ee madaxa banaan kadib go'aan warbaahintu ka qeylisay oo dowladda ka soo baxay Sabtidii toddobaadkan madaxda ururada saxaafadda qaar oo Muqdisho kula hadlay warbaahinta ayaa dowladda ku eedeeyay inay caburunayso warbaahinta kadib go'aanka ay ku muro in laga qayb qaato baahinta wararka iyo fariimaha al-shabaab safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo qoraal ka soo saartay dooda dowladda iyo ururada saxaafadda ayaa ku baaqay in iyadoo la ilaalinayo xurriyadda hadalka haddana laga wada shaqeeyo ammaanka iyo danaha dalka xuquuqda iyo waajibaadka waxay qeexayaan baliyay saxaafadda xorta xaq ayna u leeyihiin inay soo bandhigto aragtiyo kala duwan iyo mas'uuliyadda bixinta xog sax ah waxaana ku dhiirigelinayaa dowladda Soomaaliya iyo warbaahinta Soomaaliyeed inay si wadajir ah ugu shaqeeyaan horumarinta amniga oo ay ku jiraan qabka saxafiyiinta iyo xurriyadda warbaahineed ayaa lagu yiri qoraalka saxaafadda Mareykanka ka soo baxay dood adag ayaa kala tahay sida ay ururada saxaafadda qaar ugu falceliyeen go'aankii dowladda maadaama Ameerika dowladda soo saartay uu toos ugu socday al-shabaab iyo taageerayaashooda soo kalena ay xirtay fadhiyadii rasmiga ah ee faafin jiray fadhiyada markaas al-shabaab ururkooda ay ku baahiyaan wasiir ku-xigeenka warfaafinta cadaalad oo warbaahinta la hadlay ayaa go'aanka waxa uu ku celceliyay in xurriyatul qowlka iyo wax kastaba oo xog sax ah aysan diidin dowladda balse aan laga qayb qaadan karin faafinta wararka iyo dacaayadaha al-shabaab wararka arrimaha gobolkan waxa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya waxa uu dalka dib ugu soo laabtay kadib kulmadii uu la qaatay madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni hase yeeshee dhinaca kale waxa uu madaxweynaha qadka telefoonka kula hadleen Ingiriiska xogayaha markaasi waa markaas wasiirka arrimaha dibadda ee dalka UK James Cleverly xogayaha arrimaha dibadda ee UK ayaa qoraal kooban uu daabacay bartiisa Twitter-ka wuxuu soo sheegay in dowladdiisa ay sii weyso taageerada ay Soomaaliya ka siiso dhinaca la dagaalanka al-shabaab sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay in dowladdiisu uu Soomaaliya ugu deeqay sanadkan in ka badan 500 milyan oo lacagta Ingiriiska taas oo si gaar ah loogu qorsheeyay in lagu taageero shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan gaaraan kuwa ay haysto cunto yarinta biyo la'aanta iyo adeegyada kale ee muhiimka ah Ingiriiska ayaa markaas wuxuu sheegay inuu taageero weyn u fidinayo dowladda Soomaaliya inkastoo Soomaaliya iyo Ingiriiska xiriirkooda uu aad u wanaagsan yahay haddana dowladaha kale ayaana aad ugu walaacsan xaaladda abaaraha Soomaaliya ka jira oo xilligan la dhaadhacaysa dhinaca kale Ukraine waxa weli ku socda duqeymo aad u culus oo Ruushka uu ka geysanayo shalay ayaan markii dhowr gantaalo dalkaasi Ukraine lagu garaacay khasaare kala duwan dhimasho dhaawac isku jira ayaana ka dhashay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka hadlay waxa uu tilmaamay inay ka go'an tahay inay iska difaacaan weerar kasta oo kaga imaanaya wadankaasi Ruushka guud ahaan wararka waaweyn Soomaaliya caalamka daawadayaal waan inta aad kala socotaan channelkeena haddii aad nagu subscribe noo saarkan balka furnashi shirkale saxibadiina ma kasta jooga idinku kuma tiga laagana inoo